بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم وفقنا بما تحب وترضاه إن شاء الله تعالى ما أنت سؤال دورة وانفلا يوجدها يدبدا أن لك سويدي أيان سودينا وحي إلهنا يكرن سبحانه وتعالى إن نكجوابنا إلهنا وحن كبرينا سبحانه أصيع عليم الخبيرة إنه علم النسية وأنه علم جاس وحي أنه كجرنا كجود منه سبحانه وتعالى هو العليم القدير مركا وحن قرننا أيان كجوابنا وحن قرننا إلهي بن وديسنا إنه نبره سبحانه وتعالى فليتفضل. جزاك الله خير الجزاء شيخ. سائلka ugu horeeyo waa gabar la yiraahdo Qadra Saciid oo ka soo dirtay magaalada Nairobi Kenya waxa ay leedahay sheekh waalidiintayda waa ay dhinteen waxa jira walaalahay oo ku caqiido ah yaani suufiye ah aniga ayaa ka caqiido duwan walaalahay intooda badan marka nin ayaa isoo doonay kadib waxaan bilaabay in aan ogaado caqiidadiisa waxaan ogaaday in uu yahay suufi kadib waan ka joogay guurkiisa aniga oo Allah uga cabsanaya marka su'aashaydu waxay tahay ninka suufiga ma ku xidmi karaa mise saas ayaan kaga joogaa su'aashayda kale haddii nin ahlu tawxiid ah isoo doono walaalkay oo aaminsan caqiidada suufiyada ma i bixin karaa maadaama aan ku caqiido ahayn walaalkay waliba oo aan aad u nacbahay caqiidadooda nimanka. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. خير الله سيقودا هدي قبوريga mushriga intay garatay ay iska diiday إلهي وحو ليه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إلهي وحو أمر يا رجع مسلمين تا موحدين تا إنان يقورسن قبر مشرك هذا سكست هيدين يبقلسو وروح ذا مال كذا سيدا كلا قبر موحدة دالو توحيد كائنانا لو قورين رجع مشركين تا بل إله عسير راعية ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الضوء مؤمن وموحدة أيها كفي عنه كخير بدن مشرك هبا إذن عجب قليا مالكي سي سمعت دي سي وحي مركز أيدتك كوينينيا خير الله سي قبضة سي نيروبي جوكتي مشرك اسكدي دي نعم مشرك مقور سنكرتيد إلهي وحرمه سبحانه وتعالى بل هدي أضبر ارتوحي نغنيسا تحليل ما حرم الله جل جلاله inaad banaysatay wax ilaahay xarimay gabar ahlu tawxiida mushrik suufiya qabuuriya ma guursan karto ilaahay waana kala wada ahlu shiraak noomana kala duwan ahlu shiraak kan suufiga qabriga caabudaya ama awliyada caabudaya ama kan sanamka caabudaya carabka ama hindiga ama chinese-ka dhanka kale waxa su'aasha isla kulamaan gabadhu inay tiri waxa jira walaalkay oo qabuuriya suufi haduu yiraahdo qofkaan ahlu shirki aan u naqaana mushrikiina ما يبحين كرا ما ولاية ماله مشرك قبر مسلمة ما بحين كرا مرخاتم ما قالوا إن جوبجوج إنه نقطة حتى مهم معهن إن قرابة نما الله حد حريري ولا يصير هلو اللي راه هذه قبر لقى جورسة قبر هذه بانو جورسة نأوجو تاور قليل وقار أما إن السيء ولاية لو يديه قبر أهل توحيده ما marka walaalkeed mushriga ah ma bixin karo qof ahlu tawxiida ayaa bixin kara oo dad ugu xiga iyada marka loo fiiriyo xagga nasabka marka insha Allah taala si dhameystiran waa inay uga guurtaa mushrikiinta nacabta caqiidadoodana waan ugu hambalyeynaa ilaahay khayr ku siiyo Allah kugu sugo nacabka al-ishraaga aad nacabtahay Allah ku sii badiyo fahamka saxiixa oo tawxiidka iyo muwaxidiinta ajacashay jazakallahu khayran. جزاك الله خير الجزاء شيخ. سائل كلا بعد حاولي هي أولا شيخ وان سلامة يا شيخ وشيخ أجهري أن أركأس نظيف أجهد لا يو مسألة الولاء والبراء مركز سؤال شيء ذو حول عيسى بولي هي
shiiqa waxaan arkaa isagoo target saaraya intiisa badan qolayahan suufiyada oo dalaa'il iyo aayado badan uu soo qaadanaya axaadiis isagoo dhahayo waa mushrikiin waana sax waa mushrikiin waxyaabaha ay sameynayaan marka la fiiriyo marka shiiqa waa kaliya ma waxa target u ah amba uu kaliya fiirsadaa suufiyada mise uu ka hadlaa qolyahan Soomaaliya oo dawladda iyo qolyaha ka soo horjeedo la dagaalamo shiiqa ma ka hadlaa su'aashiisa qaybta labaad waxa uu leeyahay sheekh maadaama aan ogaanay in suufiyada ay mushrikiin yihiin oo qabuuraha ay caabudaan ay gaale yihiin Soomaalida waa dad isku dhex jiro wada dhaqmo laga yaabo inuu abtiga suufi yahay amba adeerka suufi yahay la wada nool yahay marka sheekh ma sameyn karaa masaajid walba oo arko masaajid tukan karaa anigoo Soomaaliya joogo masaajid aan qabri ku oolin oo kale hadaan arkaa amba waa haabi hadushiyo amba suufi hadushiyo ma ku dukan karaa su'aashiisa qaybta labaad sidaas ay u dhaceysay qaybta saddexaad waxay u dhaceysaa sida tan maadaama dadka Soomaalida ay wada dhaqmaan janaasada la isku wada raaco kan mushriga la raaco kan muwahidka la raaco marka dadka isku hadii la wada dhaqmo isku xukun ma la wada saari karaa oo ma israacin karaa muwahidiin ma laga wada dhigi karaa mise mushrikiin ma laga wada dhigi karaa su'aashiisa qaybta afaraad waxay u dhaceysaa sheekh magaalada Muqdisho markii la joogo waxa ka jira hal kawaan oo la yiraahdo kawaan bari xoolahana meeshaas baa looga soo qalaa sheekh marka anigoon ogeyn in uu muwahid soo qalay inuu mushrik soo qalay ma cuni karaa gowracaas falyatafadal bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sa'ilka su'aalihiisu waa badan yihiin waana kala duwan yihiin su'aasha koowaad wuxuu kaga hadlay maamul siyaasiya iyo dad ka soo horjeeda maxaad uga hadli weyday oo ugu badan tahay ama se aad xooga u saartaa qabuuriyiinta iyo suufiyada oo dhanka xaakimiyada maxaad uga hadli laadahay waxaan rabaa inaan u sheegay isaga qaar kale oo fikirka qabo fara badan baa jira in xaakimiyadu iyo ay kala horeeyaan caqiidadu dalkan aan deganahay kumanaan ama boqolaal sano ayaa caqiidadan suufiyada shirkiga ay soo jirtay oo si fiican uruuqdii iyo lafii iyo dhuuxii dadka ay xididadoodiiba gashay marka al-aqidatu awalan baan leenahay in marka al shirkigi aan cadeyno oo dadka suufinimada iyo shirkiga qabuuriyada laga saaro kadib baa loo gudbayaa shirkul qusuur in laga hadlo ama xaakimiyada laga hadlo laakiin dadku inta badan ilaahay qeyrkii caabudaya asnaam caabudaya in xaakimiye iyo lagala hadlo oo xaakimiyada xoogga la saaro iyadoo ay mudan tahay in laga hadlo oo la dhiso dadka waxaa nagala muhiimsanaatay muhiimadana aanu siinay meeshii nebigu ka bilaabay ahlu shiraaga markuu dacwada ugu yeerayay inuu marka hore caqiidada dhiso shirkul watanka burburiyo marka waxaan isaga saaxiibada kale aad u jeclaan lahaa inaan xaakimiyada ka hadlo aan leeyahay xaakimiyada ilaahay qeyrkii loo xukun tagaa shirki baan ka rumaysanahay inay tahay labadii shirki marka la isbarbar dhigana kii nebigu ka bilaabay burburintiisaanu ka bilaabayna oo ah shirkul qubuur ama shirkul watan marka afwan la ilaha illa allah la ma'budu bihaqqin illa allah kuma fasirayna sida ay ku fasireen dad badan oo ama akhwaanka ama kuwa kale oo yiri al-hakimiyyatu al-ulya lillahi wahda xukunkii ku soo koobay la ilaha illa allah mana ahan la ilaha illa allah waxay ka hadlaysaa nooc kasto cibaada allah iska leh la ma'budu bihaqqin illa allah wahda dacwadaas marka fidinayna marka hore caqiidadan dhisayna kadib aan u gudbaynaa waxaana priority-ga dabcan iska leh bacda shirkul qubuur shirkul qusuur jazaakumullahu khayran taasaan uga baxaya wixii kale siyaasadana maba ka hadlaba siyaasad hadda ma joognaan ka hadlan dadka caqiidadan ka dhisna weeye su'aasha labaad isla saa'ilkaana weydiiyey waxaa weeye waxaan rumaysnaa buu yiri in qabuuriyiinta ama suufiyadu mushrikiin yihiin haddana ma kala sooco masaajidkan toona waa isaga tukadaa taas waxay u ogtahay marka wixii waan fahmay danna kama lihi haddaad ogtahay inay mushrikiin yihiin masaajiday leeyihiin way cibaadaystaan culimay leeyihiin salaadaha aan tukanno shantaaba iyaguna tukadaana waa adimaan haddii aad leedahay masaajidkan soo gaaraan isaga tukanaya anoon kala eegin inuu ahlu tawxiid yahay inuu ahlu shirki yahay hadda suufiyada mushrikiin baan u aqaanaa hadhihin weli waxaa kuu dhiman inaad u aqoonsato inay mushrikiin yihiin markaad aqoonsato waad baraa'a qaadan lahayd waxaanad hubin lahayd cidda masaajidka tujinaysa
sidii imaamkii Axmed bin Xambal uu yeelay markii jahamiyadu magaalada Baghdad ay ku soo badatay oo la weydiiyo la yiraahdo masaajidka laga aqimo sayelna ma galna wuxuu yiri la tusallu khalfa illa man ta'rifuna aqidatahu ha ku daba tukanina qof aydan aqeedadiisa garanayn halka wuxuu imaamku iska ilaalinayay jahamiyada in lagu daba tukado wali wuxuu yiri markii hore waan fududeyn jiray oo dadku waxba baarbaarinaan oran jiray laakiin hadda waxa badatay bidci jahamiyada badatay shirki ba hadda jooga sheekh ilaahay qeyrkii niman caabuda jooga awliyada u yeerto ku tawassulo wax u gowraca oo nabiga u yeerta kaleey salaatu wasalaam munaafiq iyo burdo diin uu yahay ina iska fiiriso hubiso mushrikiinta iska ilaaliso aday dan kugu jirtaa marka ha oran in aan iska hubin iska tukan karaa maya mushrik lama tukan kartid mana aadan baraa qaadan ba hadda mushrikiin iska ilaalinayn marka hadaad qirtayna mushrikiin nin og meel cadow ilaahay ka buuxaan ahlu shirkiya qofku doona iskaga daba tukanaya oo iska hubinaya marka at-tawaqquf wa tabayyun waa muhiim jiddan ina iska hubiso cid aad la cibaadeysanayso meel kasto joogto hadii ahlu shirk ay meesha joogan daartuna daarul kufr ay tahay oo taaquudku maamulayo waxaan soo gudbayaa mid saddexaad oo yiri dadku waa isku dhex jiraan ma waxaan ku wada xambaarnaa kufri ma waxaan ku wada xambaarnaa tawxiid dadku haday isku dhex jiraan oo ay kala baraa qaadan waayaan oo muwaxidiintu mushrikiinta ka guuri waayaan iyagoo u yaqaan mushrikiin yihiin waa israacayaan xukunka israacinay ka guurintu ma aha inay ka guuraan kama wadno muwaxidiintu deegaan ha uga guuraan aqeed ahaan mushrikiinta inay uga bari noqdaan way laakiin adiga maxaa ku saaran ina iska hubiso qofka jinaasadiisa raacayso awal hadii ikhtilaaf jiro dad ka gali jirin maanta waxaad fahamtay qaar badan bal inta badan ummadii ahlu shiraak inay yihiin ina isbaa hubiso oo iska ilaaliso adaydan kugu jirtaa waa tii salaado kale qof kasta jinaasadiisa ma tukanaysid ilaa qof aad hubto inuu ahlu tawxiid yahay mooyee hadaadan aqoon ilaahay baa yaqaan subhanahu wa ta'ala is ilaali lafaaga ilaalso anigu dadka wada xukun oo dhammaan waa gaala dheh inta dhinac ka istaagtay ma ku dhahay laakiin ninka muwaxidka fahmay ahlu ishraaga oo ka bari noqon waayay wuxuu soo galayaa naaqid min nawaaqid al-islam man lam yukaffir al-mushrikeena aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar ninka mushrikiinta aan gaalaysiin ama shirkigooda ka shakiyo saa ku walaalaysta ama madhabkooda saxiix yeela isaga kaafir noqonaya waa naaqidka saddexaad ee min nawaaqid al-islam marka waxa sharti inuu yaqaano waxa uu la cibaadaysanayo oo walaalaysanayo taa marka waxaan leeyahay qofka fahamsan ahlu ishraaqi ka dhaxbixi waayay oo wala siiyay xukunka raacinaya kaas adiga badbaadadaada maxay ku jirtaa inaad iska hubiso qofka la cibaadaysanayso iyo qofka jinaasadiisa tukanayso iska hubintuna waa wax badan baan ka hadalnay imaam badan baa ka hadlay adigana hadda waxaan ku soo jeedinaynaa dad isku dhex jira ogtaa mushrikiin iyo muwaxidiina iska hubi cida jinaasadiisa tukanayso haday dadku kugu eedeeyaan oo takfiir baa tahay ku yiraahdaan ama faarax baa tahay dan ha ka gelin maxaa yeelay diintaada aad badbaadsanaysaa waxaad badbaadsanaysaa mustaqbalkaaga ahl ishraak inaad jinaaso ku tukato oo ilaahay diiday baa iska ilaalinaysaa liqowlihi tacaala ma kaana linnabiy والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وما بنانا النبي يدد مؤمنين إن الدم بدافع ويديا المشركين قرابة هذا مركا إن أسئلة لسوا مشركين إسكايل على سنة جنازة كنت كتنا وشرط سبت بهذه اللي مركا هذا اللي قربها وحكوا صار مدة قدام بيسا مدة نبيلا من نغنيسا وحال الجورعة ميل بعد جوكتا مشركين موحدين جوغان وحاصلنا هو البك عقبها أنت يا شيخ هذا إسكر روكتو ده wax ilaahay qeyrkii loo gowraco mushrik soo gowracay baad cunaysa hadii kalena iska hubiso xalaal raasatan oo aad ku khasban tahay idan marka qofka maanta yiraahdo waa is ilaalinaya ciriir buu galaya u diyaar garow ciriirigaas gaalaysi kuma oran dad muwaxidiina laakiin mushrikiinta iska ilaali gowracooda salaadooda guurkooda jinaasadooda saasu ilaalin lahaydna Allah laga rabaa inaad isticmaasho tabayun iska hubina waad ku khasban tahay maadaama aad ku dhex jirto mujtamac ahlu shirkiga u badan yahay jazaakallahu khayr jazaakallahu khayr jazaa sheekh dadka su'aasha soo gudbinaya waa is soo raacinayaan su'aalaha saailkan waxa uu leeyahay su'aashiisa saddex uu qaybiyay waxa uu leeyahay gaalaysiinta ummadda muslimiinta ah soo ma ahan manhajkii khawaarijta tan labaad oo ah sheekhow
qofka aanan haysanin manhajka maxamed cabdiwahaab ma gaalnimo miyaad ka aaminsan tihiin? tan saddexaad oo ah waxaad aaminsan tahay wahaabiyo qofka aanan ahayn inuu gaal yahay? بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائلك صدحي السؤالات واسكو هل ميل وسعتا وأنا جوابنا إن شاء الله تعالى، لكن أنا قلت لقلنا كل يدي أسوي إلهي كهنوني خير هدي كلا واحد أفكيني يا أمد بدن أو مودي سفكر كيسوي كجرو كلا إن أنكو شقينو أيان وشرحينا مسلمين إن لك عليسية مسلم إن لك عليسية دين الإسلام كما بنانا نك مسلمين عليسية إلهي كلية عابدنا خوارج بكون غنية. لكن سؤال شو waxay tahay yaa muslimiina ma ninka rumaysan arshiga ilaahay gacanta jiilaan inuu ku jira muslima ma ninka rumaysan adduunyadan dhulkan inuu jiilaan leeyahay Allah ma kansiiyay oo munaaqibka ugu taala malaktu bilad allahi sharqan wa maghriban wa inshiitu afnaytu al-anama bil lahdati ninka sida rumaysan miya muslima haddaad muslim u taqaan ninka awliyada u yeeranaya meedka ku tawasulaya ilaahay geyrkii baryaya wax u gowracaya kaas mushrik baa la yiraahdaa muslim maaha ka in la gaalaysiina waa cibaado la rabo in maxamed lagu raaco alayhi salatu wasalaam la nabiga yiri in man maata wa huwa yad'u min duni illahi nidan dakhala nar ninkii dhintay isagoo ilaahay geyrkii u yeeranaya naartu galay ama galaya xadiis sahih al-bukhari ku yaala xadiis kale nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man laqiya allah yushrik bihi dakhala nar ninkii ilaahay u sharig yeela ee sida ku dhintay naftu ka dhacdo ilaahay la kulma naartu galaya isagoo allah u sharig yeela xadiis sahih muslim ku yaala way idan nabiga shirki isaga nooga digay inaan fogeynana waa diinta nabi maxamed qofku muslim ku ahaan maayo nabiga inuu sheegto ilaahay geyrkiina caabudo hadduu ilaahay geyrkii caabudo nabi maxamed buu sheegtaa muslim buu sheegtaa ma dhahayno ee mushrik baan leenahay sidii qurayshtu u sheeganaysay inay raacsan yihiin diintii nabi ibraahim iyagoo mushrikiina ayay sheegan jireen ibraahim inay raacsan yihiin quraankuna waa ka anfiyay mushrikiin weeye ayaa la yiri looma fiirnay nabi ibraahim raacsan yihiin ama awoogood iyo jecel yihiin looma fiirin maka iyo xaramka inay xaramka u yaqaanaan ee waxa la eegay sharcigu uu miisaanka saaraya cid ay caabudaan haday ilaahay kaliya caabudaan waa mukhlisiin waa muslimiin haday ilaahay u sharig yeelaan waa mushrikiin idan muslimiin ma gaalaysiina mushrikiin baan gaalaysiina walhamdulillah rabbil alamin wa ku faraxsanahay inaan mushrikiinta kufrigooda iyo shirkigooda dadka u cadeyno si ummadu laba wado u kala marto wadadii shirkiga ee horkacayo ibliis iyo wadadii tawxiidka oo lagu qaadanayo nabi maxamed diintiisa alayhi salatu wasalaam alkitaab wa sunnah inta taamarka uga soo gudbo in muwaxidiin baan islaamina ee mushrikiin ma islaamino haddaad naga sugaysay shiicada iyo qabuuriintana muslimiin dhahanana mushrikiin way kuwaas waxaan ku gaalaysiinana waa masharaxay waxaan u soo gudbayaa su'aashaadii labaad ee ahayd maxamed cabdulwahaab een caqiidadiisa ninkaan haysan magaal baad u taqaanaan cid se ugu horeysay oo muslimiin gaalaysiisa ma jirtaa warsaa u eg baad tirahdeen maxamed cabdulwahaab waa 200 sano laga joogaa laakiin waxaan akhrinaynaa waa qur'aan iyo xadiis war maxamed cabdulwahaab uu leeyahay maaha sheekh 200 sano ka hor dhintay rahimahullah shirkiga uu la dagaalamay alxamdulillah qabuuriin iyo shiicaba uu la dagaalamay ilaahay ajra ka siiyo laakiin manhajka iyo caqiidada isagu ma leh manhaj salaf salih kitaab wa sunnah idin kala hadlayna محمد بن عبد الوهاب دad ka horeeyay baana gaalaysiyo dadka makhluuqa Allah ugu dhawaaday oo Ahmed bin Hanbal wuxuu dhintay 241 maxaa Abdulwahab asaga 1000 sano ku dhawaad baa u dhaxaysay wuxuu yiri kitaabka al-iqnaa akhriya man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasa'id niki yeela asaga iyo Allah dhexdooda xiriiriye yad'uunahum ay baryayaan ويسألونهم الشفاعة ويديسانيان كفر إجماعا بالليل وقالوا بسيل اسكر عسيهي وهذه مثل عباد الأصنام تاسنا waxay la mid tahay kuwii asnaamta caabudaya oo kale ka raadiy al-iqnaa kitaabka la yiraahdo ee imaamku uu warkaas ku leeyahay idan waa aqeeda muslimiintu ay rumaysan yihiin ninkii makhluuq Allah u mara oo ilaahay geyrka u yeerto shafaaco weydiista waa aqeedadii quraysh yati abu jahl ya abu lahab ya utba bin rabi'a idan marka en maxaa abdulwahab kaliya ma waxa gaalaysiiyay waa laga horeeyay waxa ka horeeyay ibn qayyim al-jawziyya waxa ka horeeyay ibn taymiya waxa ka sii horeeyay qarnigii lixaad joogay ibn jawzi al-baghdadi waxa ka sii horeeyay ahmed bin hanbal waxa ka sii horeeyay saxaabadii nabiga oo aan ogolaan ilaahay in loo shariig yeelo iyo shiicadiiba
shiicadii la dagaalamay ee ka hor yimid nimankii la oran jiray Ghaaliya oo Ali ibn Abi Talib uu gubay markay yiraahdeen Ali ilaahay baan kugu dhawaanaynaa taariikhda dib u soo akhriya mushrikiin muslimiin ma ahan محمد بن عبد الوهاب ما قفك قاليسين تو بلابه قبوريين cid kasto alla u shariig yeelaysa culimada muslimiinta oo dhan baa gaalaysiya annaguna culimada muslimiinta oo kitaabkii sunnada raacay baanu raacnay cid kasto ilaahay qeyrkii caabudaysa awliye ku tawassulaysa meyd wax u gowracaysa nabiga caabudaya nabiga baryaya aw jilaan iyo uwaysi sheekh nuur baryaya ama si Ahmed al-Badawi baryaya ama sida shiicada ku tawaafaya qabriga Xuseen oo Xuseen u yeeranaya mushrikiina billahi baan leena mushrikiin ilaahay u shariig yeelay weey toobad iyo tawxiid baan ugu yeerina kuma sirmayno sida murji'ada oo ma dhahayna muslimiin baatiin iyagoo mushrikiina oo ilaahay qeyrkii baryaya oo ku qanacsan oo qaarkood ba qababa in nabigu dambiga u dhaafi karo sida uu cadeystay ninka la yiraahdo Muuse Cade qaarna ay rumaysan yihiin in Sheikh Abdul Qadir Jilaani wadada ilaahay loo maraba u yahay sida uu cadeystay Maxamed Abdi Jawaan oo asneedi maqashiye oo jooga gobolada dhexe qaarkood waa kuwa yiri waxaan soo raraynaa Kacbadii baba laga soo raray Makka oo dhulsama reeb la keenay oo qaar badan ku farxaan inkastoo qaar kamid ah inkiraan aqeedada noocaas dadka haysta mushrikiin weeye muslimiin maaha ندعوهم إلى التوحيد والإسلام وحنقول يرينا توحيد يا إسلام من جديد عصب هذا كون توبت كنان كمان السر من إن شاء الله تعالى ذاتنا وعدينا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم الشيخ سائلك ودن بيوحو إليه سؤال فقه شيخ وقبر سدح لغفري سدح دالقضاد مرقرات لغفري ما لسوء علين كرا بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هوري waa cudur daarnay su'aalaha waana codsanay haday aqeeda ku saabsan yihiin dagaalka aan wadnaa waa dagaal aan shirki kula dagaalameen oo la rabo tasxiix al-aqeeda dadka in la saxiix yeelo masaa'ilka fiqiga meel walba looga jawaabi karaa marka waxaan codsanaynaa dadweynaha qofkii su'aal soo dhiibanayay wixii fiqi ah oo aan ahayn tawxiid iyo aqeeda ku saabsanayn inaad culimada kala u dirtaan ama dhankanaga al-aqeeda shirku billahi baan la dagaalamayna tan hadda ka jawaabo nacam waa la soo celin karaa gabar saddex talqadood mar kaliya lagu furay waa la soo celin karaa waana xadiidka sahih muslim ku yaala Abdullah ibn Abbas baan u daliilsanaynaa wuxuu yiri Abdullah ibn Abbas xilligii nabiga saddex talqadood mid bay ahayd hal talqad ahayd xilligii Abu Bakar sidoo kale ahayd markii la gaaray qayb kamid ah xilligii Umarna sidoo kale ahayd markii dambe ayaa Umar wuxuu go'aamiyay qofkii saddex talqadood ku dhawaaqa inaanay soo celin lahayn idan marka dad badan culimo fiqiyaas qaatay oo ayma qaarna waxay yiraahdeen sunnadii hore aan ku dhageynaa waxaan qabnaa marka sunnadii si nabiga uga tagay عليه الصلاة والسلام قفكي صدح طلقة كل واقع وخلط وقف لكن هل طلقة نقنيسا ونسوع علين كرا إن جودي حاسكي سوى سوع علين كرا أنا قد لسننا الطلاق مرتان مر لبعض بفور كرا مركز صدحات سوع علين ما له هدي وفرو إلا جوداس ونكل سوع جورسدو لكن سؤال شو واحد تاي أدتك سؤال شيء سوى الدين وحلا جاي بقبورين تبينيهين waxa laga yaabaa dad ahlu tawxiid fiican yihiin su'aalihi la isku dhax khalday waxa masiibo ah kii ahlu shirkigaana saano kale wax u fura kii ahlu tawxiidkaana saano kale wax u fura marka furiinka iyo talaaq waxyaabahan ku kala qaybsanahay maaha waxaan ku kala qaybsanahay anaga iyo ahlu shirki waa la ilaaha illa allah wa aqeeda waxaan jeclaan lahaa su'aalahaas aqeeda ku saabsan inay soo badiyaan waxaanu garanaynaa ka jawaabeena waxaanan garanaynaa ilaahay baanu weydiisanaynaa inuu na baro وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم